halkani waa isbaaradii shahwa ka baxaan isbaaradana ii taala maanta arsun war jamaaca isbaarada maanta ay taala dadku waxay oran jireen iyagoo cabsanaya wadnahan afarta ku haya waxay naga horeysay isbaaradii shahwa oo dadka ku dhibaateyn jiray haddaba halkee ayay u taalay isbaaradaasi shahwa goorme ayuu dhigtay maxaa ku kalifay in sidaasi uu sameeyo adiguse maxaa ka aaminsan tahay shahwa daawade warbixintan ayaan idinkugu hayaa balse daawade muuqaalkan like saar si saaxiibo sidaadoo kale u furfuran uu u gaaro siina sheergale muuqaalka oo gaarsii shacabka Soomaaliyeed shaqsigan xumaanta ku caanbaxay si ay uga digtoonaadaan shahwa inta wuxuu ka ahaa jira Siciid Argooste wuxuu ka ahaa jira isbaarista weyn oo ummadda nafta u kana qaatil oo tuug oo dilaayo oo kufsadaayo ma fahanti halkani waa duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waa goobtii isbaarada ama jidgooyada ay u taalay shaqsiga ay hadda Soomaalidu u taqaano shahwa iyo magacyadan kale ee qaabta darana sida kalafazi liifa ku saaran meydka ma garaaco xabada nagu yaalo shacdaba shabalaza iyo waxyaabo kale oo fara badan Siciid Argooste loona garan og yahay shahwa ayaa ahaa midka halkan jidgooyada dhigtay oo dhibaato baana ku hayay hooyooyinka iyo carruurta isticmaalo wadadana shaqsiga lagu magacaabo shahwa ayaa hadda waxaa laga soo warinayaa caafimaad darro iyo ku qorwidda ficilladii qaabta darna ee ummadda islaamka ku samayn jiray waxaa tiro dhowr jeer uu shahwa wadadan isbaarada u oolaan jirtay ka geystay gabadfallo uu kula kacay gabdho musaafir ahaa kuwaas oo ay ka mid yihiin kufsi iyo jirdil shahwa ayaa hadda isbedelay maskax ahaan oo noqday mid la walaa ah oo gacanta lagu hayo wiilkan dhalinyarada wuxuu inoo sheegay in isaga oo yar halkan uu imaan jiray waxaana uu arki jiray sida uu inoo sheegay isbaaro halkan u taalo shahwa waxaana kadibna indhihiisa ayaa qaban jireen sida uu dhibaateyn jiray shacabka musaafirka ahaa ee isticmaala wadadan waxaan joognaa duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan walaa meeshan taariikh badan aan ku xasuustaa oo anagoo macna social media isticmaalo laakiin isbariyaan waxaan arkay nin oo muddo hore iskeen dambeeyay oo magaciisa la Siciid Argooste oo bulshada ay og tahay shahwa inta wuxuu ka ahaa jira Siciid Argooste wuxuu ka ahaa jira isbaarista weyn oo ummadda nafta u kana qaatil oo tuug oo dilaayo oo kufsadaayo ma fahanti habeenka xataa ma jirto ninkaas waa dadka uu dilay ka dhex qaylaayo haddana ugu sii jirto naaga oo boosaaso ka imaado oo safra oo musaafir iska oo maskiin haddana oo maamo Soomaaliyeed gabdho carruur isku jiraan waxaas ma jixin jiraan waa kufsi jira shahwa xilliga isbaarada halkan u taal wuxuu jira qor la yiraahdo sheeg Kuuriyaan oo si jira marka waa ninkaas dad oo safar oo ka imaaday boosaaso u socdeen xamar caasimadda Muqdisho ayaa habeen abaaraha 8 saacadood ay tahay anagoo meesha isbaarada joogno ayaa si oo macna arxan daran wuxuu gaariga kula soo degay maamo Soomaaliyeed oo kadibna oo horteeda kula oo ku farxumeeyay waxyaabo aan macna oo diinta islaamka aan kamid ahayn marka aniga saasay taa qorga anigu ii dhiibtay aad iyo aad aan ugu xumaaday waa ka xanaaqay inaan taa xabada aan ku dhufto waa damcay balse waa ka cabsada gaangister oo dilaayo aan waa shahwa isbaarada oo kula jirta qaabaan wuxuu ahaa nin caata oo degdeg gaduudan la dadku aad ay ugu baqaan ma fahanti marka ninkaas nin caata oo ahay oo degdeg gaduudan oo qaab darada ka badat halkan xilli halkan oo joogi jiray meeshan ma fahanti hadda Ingiriisku naaxo ciilo aan joognaa goobta isbaarada oo jirta shahwa fadlan muuqaalkan share garay soo u gaaro shahwa